maamulka dawladda hoose degmada burco oo hore hal mar u dhagax dhigay 4 wado ku yaala magaalada burco ayaa maanta si rasmi ah waxay xadhiga uga jareen wadadii labaad iyadoo ay sheegeen labada kale inay toddobaadkan bilaabayaan waxaana goobjoog ahaa Badhasaabka gobolka Togdheer iyo Maayirka degmada burco ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay xildhibaano xogayaha dawladda hoose degmada burco iyo Maayir ku xigeenka degmada iyagoo bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan wadooyinka tayada leh ee loo dhiso hormaraysa masaajidka ka baxaysa ina qulumbe oo dhisay ku dhamaanaysa halka xarunta TV-ga qaranka ku dhamaanaysa afar wado qorshaha noogu jiray inaan muddo yar kooban aanu ka fulno magaalada burco ayaa labadii tii labaad maanta dhamaatay tii saddexaadna berrito insha Allah ayaa dhaqsa loo bilaabi doono drainage-kii bay leeyihiin wadooyinka dhisna quality-goodu wuu fiican yahay marka waxaan isleenahay caasimadii labaad oo ku taagnaadeen magaalada hore u sii socoto wadada inta dheer ka timaada inay notice ku furfurtaan wadadii wala bilaabaya berrito waliin notice la siiyaa furfurtaan yaan hadaba aanay balqalan ku noqon meheradaha waati notice la siiyaa furfurta sida qaalibka dadku waxay caadaysteen wadooyinka inay xalka iyo biyaha iyo dambaska iyo qashinka ay soo dhigaan intubana wadada waxbay yeelaysaa lacagta ku kacday wadadan wadooyinkan sameeyna waa malaayiin dollar marka dadweynuhu haddaydan nala ilaalin oo la xajacada laftiinu idinkuna nala qabanin waxba kama jiraya waxyaga waana dhameystirnaa sakad kasta iyo suuq kasta hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la gaarsiiyo inaanu laabin barino ganacsatada wax ka qayb qaataan oo dadweynuhu ka qayb qaataan oo inagoo wada jira sidaynu u shaqayn jirnay aanu wada shaqayno Maayirka degmada burco Maxamed Muraad iyo Badhasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa iyana shacabka iyo ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka iyo bilicda magaalada burco reer burco waxaan u ballan qaadnay 4 wado oo sanka isku haya wadadii koowaad waxay tii alamsay stadium ka ahayd waa soo dhamaatay wadadana waa tii labaad ina qulumbe ilaa afgooy waxa ku xigeysay inaan weekend dambe ku bilaabi doono hadii Ilaahay ka dhigo saldhiga dhexe muxuu ahaayay iyo xanaanada taa hormarta ee halka afgooyga ka soo xidhanta siciidow nash baa ugu dambeynaysa reer burco waxaan leenahay midkii awal baan oran jirnay waxaan wadooyinka laga dhisay waa waxaan yar leedinka gurayo wadooyinka hal la ilaashado reeraha wadooyinka wadada ku soo jeeda hortoodana ha nadiifsan wado runtii waxa looga baahan yahay dadweynaha guryahooda ama meheradooda ay ka soo horjeedaan laamiga inta laamiga iyo iyaga u dhaxaysa inay iyaguna bilicda ka qayb qaataan oo ay dhigaan marmarka yar ee lugta waxa laga yaabaa in laamiga iyo guriga ay u dhaxaysa 2 mitir marka guri waliba inta hortiisa iyo laamiga u dhaxaysa inuu marmarka yar ee lugta uu dhigo si quruxdii iyo sharaftii ay u muuqato bal marka hore waxaan kula dardaarmayaa inay cashuurta bixiyaan mar labaadkana dadweynaha ganacsatadii wadooyinka hortooda maraya ee la sameeyay xaafaduhuba inay ka qayb qaataan si ay magaaladeenu inoogu qurux badnaato dadweynaha magaalada burco ayaa iyana dawladda hoose ku bogaadiyay wadooyinka ay hirgeliyeen in muuqata lacagtii cashuurta hay'adda aan bixinaya oo lagu sameeyay wadooyinka bilicda iyo quruxda leh golaha deegaanka ee hadda jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo wax qabad fara badan ayay magaalada u qabteen wadadan ay dhiseen ee sharafta iyo sida wacan ay u dhiseen ayaan dhammaan reer burco nahay uga mahad celinaa Mahad Ali Goodir Star TV burco.